waqtigii wuxuu noqday hal bacad lagu lisay. ilaahayna wuxuu leeyahay tafaraq licibaadatii amla'u sadraka ghinan wa asudda faqraka wailaa tafcal mala'tu yadaka shuqlan walam asudda faqraka. ilaahay baa le addoonkaygiioo cibaadadayda iyo taacaddayda iyo diinteeda wakhti u samee, aniguna maaragtaan qalbiga ayaan kaaga buuxinayaa hina nafsi, baahidaadana anigaa daboolaya baa ilaahay kaa yidhi. wailaa tafcal haddaad sidaa yeeli weydo ood samayni weydo mala'tu yadaka shuqlan walam asudda faqraka baa ilaahay yidhi. 24 saaca mashquul baan kaa dhigay oo biisi baan kaa dhigayaa, baahidaadana ma daboolayna baa ilaahay yidhi. albaabada faqriga laga dabooli maayo. haddaan wakhtigeenna qaybinno, saacadna aan u dayna kasbi xalaala, saacadna masaajidda aan ku camirno, oon aakhiradeenna ka fikirno, oon diinteenna ku baranno, oon diinteenna ka fikirno, oon dhallinyarada walaalaheenna masaajidda ka maqan aan u murugoonno, oon u tegno oon gacanta soo qabanoon masaajidda keenno, saacadana aan ku camirno maaragtaanay reeraheenna iyo ubadkeenna aan siinno, nolosheennu qiimo yeelanaysaa markaas. tafaraq licibaadatii amla'u sadraka ghinan baa ilaahay yidhi. laysa alghinaa can kahrati alcaradi walaakina alghinaa hina nafsi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. hinadu maahin xoolo badan iyo hanti badan oo la yeeshee, waa hina nafsi, waa naftaada oo deeqtooda weeyaan hinadu. qalbiga oo kuu xasila, qalbiguna muxuu ku xasilayaa? aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah, alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub baa ilaahay yidhi. kuwa ilaahayo rasuulka rumeeyey quluubtooda waxay ku xasilaysaa ilaahay taacaddiisa. alaa ilaahay baa la intabihuu, baraarugoo dhegihiinna fura. qalbiga bini aadamku wax kaloo ku xasilaya male baa ilaahay yidhi, ilaa ilaahay taacaddiisa mooyaane. salaadda markaad tukatid qalbigaaguu xasilayaa. maskiidka markaad saacad fadhiisato qalbigaaguu kuu xasilayaa. juz qur'aana haddaad tadabbur iyo tafakur aad ku akhrido qalbigaaga uu kuu xasilayaa. xalaqaat alcilmi haddaad fadhiisato ood culammada la fadhiisato oo diintaada aad wax ka barato, qalbigaaga waa kuu xasilayaa. xalaqat adacwa haddaad fadhiisato oo dadka walaalaha ee muslimiinta aad ku soo qaaddo jawlaad iyo ziyaaraad. man cada mariidan aw zaara akhan lahu fi اllaah naadaahu munaadin bian tibta wataaba mamshaaka watabawa'ta min aljannati manzila. qofka qof buka ilaahay dartii u buuqday ama qofay diinta islaamka walaala ku noqdeen ilaahay dartii u ziyaartay buu nebigu yidhi, samada ayaa looga dhawaaqaa oo la yidhaahdaa waad wanaagsanaatay, socodkaagaasna uu wanaagsanaaday, jannadana manzil baa lagaaga diyaariyey baa lagu odhanayaa. alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub. qalbigan wax kale ku xasili maayo, lacag ku xasili maayo, dhoofna ku xasili maayo. dad baa dhoofun ka fikiraya, dhoofun bay ka haysataa. dad baa tacliinun ka fikiraya, tacliintan maadiga, oo tacliintii diintoodana aan u arkayn in wax lagu cunayo. qalbigaagu ku xasili maayo ashyaada iyo maadada kuu badatee, wuxuu qalbigu ku xasilayaa oo ilaahay macrifadiisa. alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub. aqim isalaata lidikri. salaaddii baa lagu leeyahy waxaad ku ogtaa ilaahay dikrigiisa. waladikru llaahi akbar. ilaahay dikrigiisa ayaa weyn. walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin fadakir inamaa anta mudakir. qur-aankii waa dikr, nebi maxamed waa mudakir, salaaddii waa dikr. inamaa jucila asacyu bayna asafa walmarwa waramyu ljimaar liiqaamati dikri illaahi buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam. sacyigii marwe iyo dhexdooda la sacyinaya safa iyo dhagaxa la tuuranaya buu rasuulku yidhi, iyo tima xiirasashada ay xujaydu timaha xiiranayaan, intaba waxaa looga dalnayahay buu nebigu yihi ilaahay xuskiisa in lagu ogo. gaayat lcibaada waa dikri weeyaan, in qalbigan mar walba uu noqdo qalbi ilaahay jala wacalaa mar walba xasuusan oo ilaahay ku tacalluqsan. fii salaatika, salaada dhexdeeda ilaahay ku xasuuso, aqalkaaga ilaahay ku xasuuso, ubadkaaga ilaahay ku dhex xasuuso, meheradaada ilaahay ku xasuuso. warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajidi. toddobada hadhka ilaahay loogu hadhayn doono maalinta hadh kale uunan jirin, hadhka alla mooyaane waxaa ka mida buu rasuulku yidhi nin maaragtaane mar walba qalbigiisu uu ku xasilooniya, nin mar walba
qalbigiisu ku tacalluqsan yahay masaajidka ilaahay cabdillaahi bn rawaaxa radia allaahu canhu xaaskiisa dhabteeda isagoo ku jiifa ayay lilma ka daadatay markaasay aragto way la oyday iyadiina markaasuu indhaha kala qaado wuxuu ku yidhi maxaad la ooyeysaa markaa bay tidhi dee adoo ooyey un baan ku arko anna waan kula ooyey bay tidhi markaasuu anigu waxaan xasuustay kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala fii suurati maryam wain minkum ilaa waariduhaa kaana calىa rabbika xatman maqdiya ثuma nunaji aladiina اtaqow wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya anugu waxaan xasuustay qowlka ilaahay uu ilaahay leeyahay mid kastoo ininka naga mida ma jiro hadduu jirose jahannamo ayuu ku aroori doonaa baa ilaahay yidhi uma intaa kadibna nunaji aladiina اtaqow kuwii adduunka dusheeda ku soo cabsooday ilaahay kaga soo baqay waan badbaadin doonaa baa ilaahay yidhi waan nabadgelin doonaa wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya daalimiintana iyakoo jilba jooga ayaan halkaa kaga tegaynaa baa ilaahay yidhi dhabtuu ku jifaa innaka maanta khafladda inagu dhacday qaari sood fiican oo qur-aan macaan gadaashiisa innagoo ku tukanayna ayaan adduunyadeenni xisaabinaynaa oon meheradeennii ka fikiraynaa iyakuna xaasaskooga dhabtooda iyakoo ku jiifa ayay jannadii aakhiradiiyo naarta xasuusanayeen nin sheekhoo maalin darsi marinaya ayaa xadiidkii wuxuu markaa ardayda u dhigayey waxaad tidhahdaan reerihiina markaad la galmoonaysaan ducadaa xasuusta nebiga ayaa yidhi akhristee bismi اllaah allaahuma janibna الshayطaan allaahuma janibna الshayطaan wajanib الshayطaana maa rasaqtana markaa nin ardaydii ka mid ahaa oo sheekh ahaayoo reero badnaa baa yidhi sheekhow raggu halkaa markay marayaan besinkaba ma haleelaan buu yidhi iska daa ducadaasi halkaas xaaskiisii dhabteeduu ku jiifaa wuxuuna xasuusanayaa naar waa lay sheegay buu yidhi inaan naar ku arooraayo laakiin ma ka baxayaa taasaa ii kala caddayn buu yidhi taasaa ii kala caddayn zuraarata ibna abi awfa raximahullah taabici buu ahaa imaam almasjid buu ahaa salaat alfajarkii buu tujinayay dadka rakacaddii hore markuu ku furfurtay suuratu alfaatixa faaftataxa suurata almudathir markuu gaadhay faidaa nuqira fi الnaaquur fadalika yowmun yowmun casiir clى alkaafiriina hayru yasiir halkaa markuu gaadhay khara calى alardi maqshiyan calayhi faxumila ilaa beytihi wamaata gurigiisii baa loo qaado loo xambaaray sidii buuna ku dhintay faidaa nuqira maalinta maalin baa iman doonta baa ilaahay leeyaha suurta aan afuufi doonno waa maalin culus baa ilaahay yidhi oo gaalada dushooda kuma fududo yowma albachi weeyaan aayaddaa markuu gaadhay dhulka ayuu ku dhacay daedna meydkiisiina gurigaa loo qaaday sayidina cumar alfaaruuq radia allaahu canhu mubashir biljanna waa ninkii nebi maxamed uu lahaa low kaana bacdii nebiyan lakaana cumar qasri jannada ku yaalla ayaan galay buu nebigu yidhi xawraa baan ku yidhi xawraayee qasrigan ayaa ilaahay ugu tala galay waxay tihi nin qoraysh ka dhashaa nin carab ka dhashaa loogu tala galay anigaa carabiya ma cid kalaa ha jilibka quraysheed buu ka soo jeedaa anigaaba qurayshiya ma cid kalaa ha ummadda muxamed buu ka mid yahay anigaa muxamede ma cid kalaa hawa cumar binu khadaab bay ku tidhi cumar aad garanaysaan maqaamkiisa iyo darajadiisa khayru nnaasi buu ahaa bacda annebiyiina waalmursaliin ilaa abi bakr sidiiq mooyaane khalqiga kale ilaahay abuuray baa layidhi nebiyada iyo mursaliinta iyo abubakr sidiiqunbaa ka fadli badnaa kaasaa maskiidka nebiga soo galay wakhta saxar buu soo galay wuxuu arkay inan yaroo shaaba oo qaariya oo ku tukanaya maaragtaane suuratu tuur qiyaama leylkii bacda qiraa'ati alfaatixa markaasuu cumar istaago uu dhegaystay watuur wa kitaabin mastuur fii raqin manshuur wاlbeyt اlmacmuur wالsaqfi اlmarfuuc wاlbaxri اlmazuur ina cadaaba rabbika lawaaqic halkaa markuu maraya cumar dhulku ku dhacay faxamaluuhu ilaa beytihi gurigiisaa loo xambaaray 20 maalmood ama bil ku dhowaad buu xanuunsanaa cumar baa la yidhi dadku kamaysan warqabin xanuunka cumar meeshuu ka yimidina kamaysan warqabin quluubtooda ayaa noolaato jilcday innaga zamankeennan calooshaa laga shaqaynaya waa zaman albutuun butuun maxaan cunaa maxaan fuulaa maxaan qaataa halkeen galaa maxaan dhalaa halkeen tagaa xaggee wax ka cunaa waxa adiga laguma diran adiga waxaa lagu dirtay keliya cibaado calayna an nacbudahu kamaa amar wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad nin saalixiinta ka mida lagu yidhi dalka intaad ka maqnayd ma ka warqabtaa waxa isbeddel dhacay maya kama warqabee ii sheega buu yidhi waxaa la yidhi qad halaa alcaysh noloshii baa noqotay haali
sicirkii bidaacadaha ayaa ziyaaday roodhidii way ziyaaday shaahii uu ziyaaday markaasuu yidhi anuu warkaa ma haya buu yidhi anuu warkaygu waxa weeyaan calaynaa an nacbudahu kamaa amar aniga waxaa layga rabaa keliya inaan u caabudo siduu isagu igu amray wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad asagana waxaa laga rabaa inuu noo arsaaqo siduu isaguba noogu yaboohay